geerida sideedaba waa geeri un adiga ha ku taabato cid kale ha taabato waa un geeri laakiin waxa ay si xun u taabataa reerka markaasi laga geeriyooday haddaba gabadhan waa ay ooynaysaa sababta ay u ooynaysana waxay tahay walaasheed ka yar ayay daawanaysaa oo dhimanaysa xabad ma ahan mana la dilayo ee waxaa dili doona ilaahay amarkiisa marka laga soo tago oo ay sababsatay waa baraf Buffalo New York barafkii ka da'ay dad badan ayaa ku dhintay laakiin gabadhan walaasheed 23 jirka ah waxay dadka kaga duwan tahay waxay tahay si toos ah ayay u wada xariirayeen kolba xaaladda meesha ay marayso ayay u soo sheegaysay kadib markii barafka wadada dhexdeed ay ku xanibantay wadna xanuun qalbi dilaac walaasha aadan waxba u qaban karin booliis aan waxba u qaban karin dawladda aan waxba u qaban karin adigana aad daawanayso inay dhimanayso walaasha sidaas oo kale ayaa ku dhacday fariin ayay u soo diraysaa waa lagu soo gaari doonaa booliiska ayaa kuu soo socda xaalkaaga waa sidee qaboob daran baa jiro gaariga inuu iga damaya ma aqaano xaalka waa xun yahay marba fariin sabir iyo muuqaal ayay u soo diraysay bal sheekada intaas kuma eka aad bay u dheer tahay laakiin waxaan doonayaa inaan wada daawano haddaba waa kaa gabadha ooynaysa sababtay u ooynaysana waxay daabatay waa walaasheedii oo dhimanaysa fariinta muuqaalka hadda aad aragto waxa soo diraya waa gabadha yarta ah ee 23 jirka ah fariimahaas ayay isdhaafsanayaan qoraaladaasi ayay isdhaafsanayaan kolba fariin ayay isdhaafsanayaan balse isma arki doonaan waa waqtigii ugu dambeeyay waa fariimihii ugu dambeeyay waa muuqaaladii ugu dambeeyay ee macsalaamada ahaa ayaa haatan daawanaysaan oo walaasheedii ka yar barafka dhexdiisa ku xanibantay u soo diraysa kolba waa la soo wacayaa markii dambana waxa dhacay in gabadhii la waayay markii dambana waxa dhacday in gabadhii la waayay hadalkeedii subaxii marka la tagayna loogu tagay gabadhii oo dhimatay haddaba waata gabadha hadda aad daawanaysaan ayada oo horay xaafadda joogto intaysan shaqada u bixin ka hor ayay ahayd muuqaalkan ayaa waxaa daawatay in ka badan 3.6 milyan oo ruux ayaa daawatay waana muuqaal xanuun iyo qalbi dilaac dad badan ku reebay dhanka kale Allah subhanahu wa ta'ala ayaa awoodiisa wuxuu dadka ku tusayaa in sida rabo uu u dili karo dadka laakiin barnaamijka kan ama geerida tan ayaa ah geeri wax badan kaga duwan dhimashooyinka kale ee dhaca especially kuwii Mareykanka ka dhacay ee 30 qof ay ku dhinteen barafka awgeed waxaan dhacaya waa gabar iyo walaasheed ka weyn oo fariimo isku soo diraya waan dhiman rabaa qaboob ayaa la dhiman rabaa xaalka miyaa la isoo gaaraya iyo waa lagu soo socdaa iyo waa la soo socdaa iyo ma la soo socdaa muuqaalka waa ka xaaladda waa sida sawirka waa sida sheekadu oo ku socoto ayaa markii dambe waxa mar qur ah la waayay fariimihii gabadha waa la wacayaa ma qabanayso waa la wacayaa gabadhii ma qabanayso ugu dambeyntii reerkii waa ayaa ku baryay way waasheen meel ay wax ka sameeyaan ayay garan waayeen si ay wax u sameeyaan ayay garan waayeen ayagii ma bixi karaan oo booliiskii ma soo bixi karaan booliiskii soo baxay naftirkoodii ayaa xanibamay oo goobtii soo gaari waayay ugu dambeyntii subaxii barafkii oo gabadhii aasay ayaa goobta loogu tagay barafkii ayaa la faagay gaarigii ku dhex jirta ayaa laga soo saaray waxaana loogu tagay ayada oo dhimatay oo meed ah ayaa loogu tagay dhimasho waa dhimasho laakiin way kala daran tahay asxaabtaada la sii wadaag oo markaa igu soo biir dhacdooyinka arrimaha DV lottery-ga immigrationka iyo waliba dhacdooyinka daafaha dunida ka dhaco
ayaa halkan kala soconaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.